سورة الناس وسورة كسو دكتي مدينة آياده هذا ولح آيادات نبي صلى الله عليه وسلم وحي كسو دكتي مركا وسحري نين يهودي أها أولده جري لبيد بن أعسم نين كان لبيد بن أعسم قريش با أبلان قادي هانتي هدو نبي صلى الله عليه وسلم سحره سحر كاس ونبي سحرنا وكدل النبي صلى الله عليه وسلم marka suuradda waxay ku wareegsanaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala la magan galo lagana magan galo shaytaanka wax waswaasiya markuu wax waswaasinayana bini'aadanka u gabado suuradda waxay inagala hadlaysaa oo kale in Allah subhanahu wa ta'ala xuskiisa la badiyo xuska Allah subhanahu wa ta'ala haddaan la badiyo uusan shaydaanka na waswaasin karin marka aan xuska Allah subhanahu wa ta'ala ilowno buu shaydaanka inoo soo muuqanayaa laakiin markaan Allah subhanahu wa ta'ala xuskiisa ku jirno oon Allah subhanahu wa ta'ala ku xirannahay shaydaanku wuu naga dhuumanaya oo nooma soo muuqan karo marka suuradda tafsiirkeeda oo bilowday waa kan aan ka faa'iidaysana insha allahu tacaala bismillaah magaca eebbe baan ku bilaabayaa arraxmaani naxariis guud naxariista muslim iyo gaalba u naxariista intay dunida joogaan arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariisto oo u naxariisto mu'miniinta maalinta khiyaamo qul dheh nabi allow acuudu waxaa magan galaya dheh birabbinnaasi rabbiga dadka baan magan galaya dheh malikinnaasi malikii boqorka baan magan galayaa annaasi ee dadka ilaahinnaas waxaan magan galayaa ilaah baan magan galayaa annaasi ee dadka waxaana ka magan galayaa min sharri sharta baan ka magan galayaa alwaswaasi kan wax waswaasiya alkhannaasi ee gabashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiyo fii suduuri nnaas laabta dadka kan waswaasiya baan Allah subhanahu wa ta'ala ka magan galayaa kaas oo ka ahaaday min aljinnati jinniga xaggiisa iyo wannaasi dadka xaggiisa baa ka ahaaday nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la amraya inuu dhaho waxaan magan galayaa Allah subxaanahu wa tacaala magan galayaa allahaas oo ah rabbiga dadka allahaas oo ah boqorka dadka allahaas oo ah ilaaha dadka waxaana nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu leeyahay waxaad Allah ka magan gashaa sharta kan wax waswaasiyo marka uu dadka waswaasinayana u gabado oo ka dhuunto kaas oo waswaasiyo laabta bini'aadanka muxuu laabta bini'aadanka u waswaasinayaa laabta bini'aadanka waxaa ku jirto cad hilib baa ku jirto caddaas hilibka ah hadday wanaagsanaato jirka oo dhan wuu wanaagsanaanayaa laakiin cadkaas hilibka ah hadduu xumaado jirka oo dhan wuu xumaanayaa marka wuxuu u waswaasinayaa laabta bini'aadanka wuxuu rabaa cadkaas hilibka ah inuu xumaado kadib jirkaado dhan uu xumaado bismillaah magaceeba baan ku bilaabayaa arraxmaani naxariis guud naxariista muslim iyo gaalba u naxariista intay dunida joogaan arraxiimi naxariis gaar ahaaneed naxariista qul dheh nabi allow acuudu waxaa magan galayaa birabbinnaasi
rabbiga dadka baan magan galayaa. maliki waxaan magan galayaa boqorka annaasi ee dadka. ilaahi waxaan magan galayaa ilaah baan magan galayaa annaasi ee dadka. waxaana ka magan galayaa min shari sharta baan ka magan galayaa alwaswaasi kan wax waswaasiya alkhannaasi ee gabashada badan alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiyo fii suduuri nnaas laabaha dadka min aljinnati kana ahaaday min aljinnati jinka xaggiisa iyo wannaas dadkaba. marka suuradda waxay nagala hadlaysaa inaan allah subxaanahu wa tacaala magan galno si allah subxaanahu wa tacaala uu inaga badbaadiyo sharta jinka iyo tan dadkaba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada muuqaalkan aan kaga hadli doonno tafsiirka suuratulfalaq. suuratulfalaq aayadaheeda waa 5 aayadood. ayada iyo suuratunaas nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo degeen marka uu sixray nin la dhihi jiray lubayd bin acsam. ninkaas oo ahaa yuhuudi laakiin muujistay islaamnimada, qalbigana ku haystay ama ka aaminsanaa ictiqaadka ama rumaysadka munaafiqiinta. wuxuuna isticmaalay markuu nebiga sixrayay shanladii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku shallaysan jiray iyo timihii nebiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuuna ku akhriyey waxyaabo buu ku akhriyey. kadib nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaas buu ku sixray. sixirkii uu guntay wuxuu hoosgeliyey ceel salkiisa, ceelkaas oo la dhihi jiray darwaan. ceelkaasna waxaa isbedelay biyihiisibaa isbedelay. marka nebiga sala allahu calayhi wasalam suuratunaas iyo suuratulfalaq waxaa loogu soo dejiyey in allah subxaanahu wa tacaala uu sixirkaas oga furfuro, uuna allah subxaanahu wa tacaala oga magan galo sharta. waatan marka suuratulfalaq oo tafsiirkeeda inoo bilowday aan ka faa'iidaysanay insha allahu tacaala. bismillaah, magac ceeba baan ku bilaabayaa. arraxmaani, naxariis guud naxariista, muslim iyo gaalba u naxariista intay dunida joogaan. arraxiimi, naxariis gaar ahaaneed naxariista, una naxariista mu'miniinta maalinka qiyaamo. qul dheh, waa amar nebiga sala allahu calayhi wasalam la amraya. qul dheh, acuudu waxaan magan galayaa birabbilfalaqi, rabbiga waaga dhambala. waxaana ka magan galayaa min shari maa, shar xaggeeda baan ka magan galayaa, shartaasoo khalaqa uu abuuray. waxaan ka magan galayaa allah subxaanahu wa tacaala wa min shari, allah subxaanahu wa tacala waxaan ka magan galayaa sharta ghaasiqin, sharta dayaxa, idaa goortii waqaba uu mugdiyoobo. wa min shari, allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka magan galayaa sharta annafaahaati, ku wax ku tutufo fil cuqadi guntimaha. wa min shari, allah subxaanahu wa tacaala waxaan ka magan galayaa sharta xaasidin, kan wax xasda, idaa goortii xasada uu xasdayo. nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la siinayaa amar, waxaana lagu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala magangal baa lagu leeyahay. waxaadna ka magan gashaa shartuu allah subxaanahu wa tacaala abuuray, ka magangal baa leeyahay. waxaadna allah subxaanahu wa tacaala ka magan gashaa sharta dayaxa, marka uu madoobaado baa lagu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ka magangal. waxaa kale ood allah subxaanahu wa tacaala ka magan gashaa sharta ku wax ku tufayo kuna tufayo guntimaha ay wax ku sixraayaan shartooda, allah subxaanahu wa tacaala ka magangal baa lagu leeyahay. waxaa kaloo lagu leeyahay
waxaad ka magashaa allah subxaanahu wa tacaala sharta xaasidka marka uu wax xasdaayo ka magangal baa lagu leeyahay. bismi illaah, magacayba baan ku bilaabayaa. arraxmaani, naxariis guud naxariista. arraxiimi, naxariis gaar ahaaneed naxariista. qul dheh acuudu waxaa magan galayaa birabbi lfalaqi, rabbiga waaga dhambala baan magan galayaa dheh. waxaana ka magan galayaa min shari, sharta baan ka magan galayaa maa khalaqa, maa shartaasoo khalaqa uu abuuray. wa min shari, sharta baan ka magan galaya allah subxaanahu wa tacaala shartaasoo ah ghaasiqin, dayaxa idaa goortii waqaba uu mugdiyoomo. wa min shari, allah subxaanahu wa tacala waxaan ka magan galaya sharta annafaahaati, kuwa wax ku tutufo shartooda baan ka magan galayaa, kuna tufo filcuqadi guntimaha. wa min shari, waxaan ka magan galayaa allah subxaanahu wa tacaala sharta xaasidin, kan wax xasdo idaa goortii xasada uu xasdayo. marka labadan suuradood, suuratu nnaas iyo suuratu lfalaq, waxaa la isku dhahaa mucaawadatayn, kuwii allah subxaanahu wa tacaala sharta looga magan galayay. nabiga sala allahu caleyh wasalamna wuxuuna amray marka aan subaxdii soo kacno inaan labadan suuradood ku darno dacooyinka aan akhrisanayna si allah subxaanahu wa tacaala sharta maalinkaas inooga dhowro. marka tafsiirka suuraddan haddaan ka faa'iidaysanay, walaalaha kale aan u gudbayna insha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmat ullah.